السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa idin wadaa film South Korean ah kaasoo lagu magacaabo Miracle in Cell No 7. filmkan waxa uu ku bilaabanayaa gabar la dhaho Yisan taasoo jirta 6 sano oo la ciyaaraysa aabaheed asagana lagu magacaabo Young. banaanka dukaanka gabadha iyo aabuhu way iska ciyaarayaan waxa ay ka helaysaa boorso taale dukaanka ay ku ciyaarayaan hortiisa. aabuhu waxa uu sheegayaa in uu u iibin doono markuu biri lacagta soo qaato. si kastaba ha ahaatee qof baa isku dayay inuu iibsado boorsada. Young waxa uu soo galay dukaanka waxa uuna codsaday inuu boorsada fiirinayo waqti dheer uuna rabo inuu iibsado asaga. macmiilku waxa uu muuqdaa inuu yahay taliyaha ciidanka. kadib waa uu dharbaaxay Young waxa uuna dib uga soo cestay boorsadiisa. Troy oo ah gabadha ninka booliska ah dhalay waxa ay soo raacday Young waxayna ahayd gabar yar oo 7 jir ah. marka ay ismaca salaameynayaan ayadii Young mid walba waxa uu bedelay wajigiisa si qaab ciyaar ku dheehan tahay. maalintii xigtay Troy waxa ay u timid meesha shaqada Young waxa ayna rabtay in ay u sheegto boorsadeeda boorso u eg dukaan lagu iibiyo. si kastaba ha ahaatee gabadhu waxa ay ku dhacday dhulka waxaana ku dhacay bulkeeti. waa uu soo cararay Young waxa uu siinayay neef waxa uu furay guluuska sarweelkeeda si uu u kala xirmin dhiigu. hase ahaatee naag baa waxa ay u aragtay si khaldan oo u qabtay in uu kufsanayo. Young waxaa xiray booliiska kuna eedeeyay kufsi iyo dil. marka xigtay waxaa arkaynaa in xaaladda booliiska halkaas uu kula joogo. waxa uuna isku dayayaa in uu u sheego in ay gabadhiisu sugayso keligeed xaafadda. goortii uu isku dayay in uu ku laabto xaafadiisa waxaa nabar ku dhuftay taliyaha qaybta halkaas joogay. halka qolyaha saxaafaddu ay sawirayeen taliyuhu waxa uu sameeyay eedeyn been ah oo been abuur ah taas oo mid qallafsan ah oo ku Young. subaxii xigtay gabadhu waxa ay ka soo baxday xaafadda iyada oo raadinaysa aabaheed. sidoo kale Young waxaa loo soo safriyay meeshii ay wax dhibku ka dhaceen. taliyuhu waxa uu sameynayay waxyaalo been abuur ah. cunugta yar waxa ay u soo dhawaatay meesha waxa ayna aragtay aabaheed. bilowgii waxa ay isku dayday inay u soo orado aabaheed. mid ka mid ah ciidanka waxa uu awooday in uu xakameeyo asaga si uusan midba midka kale ula kulmin. Young waxaa la keenay xabsiga waxaana la geeyay qaybta 7 oo ay joogaan 5 maxbuus waxa ayna kala yihiin Bang Shik oo loo xiray jeebsiib ama jeeb baarasho, Kanho iyo Grandwa oo loo xiray khiyaano darteed, iyo Man Bom oo loo xiray in uu sinaystay asaguna. halka Yanho loo soo xiray in uu tahriibin jiray dadka burcadana la shaqayn jiray ganacsiyadooda. dhammaantood kama aysan helin asaga eedeyntiisa beenta ah iyo dambi maskaxeedkiisa mana aysan awoodin in ay garaacaan markaan. intaa kadib waxaa la gaaray xilligii ay banaanka u soo bixi lahaayeen. xabsiga dhexdiisa sidoo kale koox gaangis ah waxa ay qorsheynayaan in ay dilaan Yanho oo ahaa hogaamiyaha xabsiga. maalintii koowaad Young waxa uu ogaanayaa booskiisa waxa uuna arkayaa in ay diyaar u yihiin in ay weeraraan Yanho. waxa uu u soo cararayaa si uu u difaaco waxa uuna maamulay amnigiisa kana hortagay mindidii. intaa kadib Yanho waxa uu caawinaya Young waxa uuna u sheegayaa wax kasta u baahan yahay in uu u qaban doono. halka Young uu leeyahay kaliya waxa rabaa in aan arko gabadhayda Yeson. dhacdada xigtay waxaan arkaynaa kaniisadda Jo iyo tiimkeeda in ay ku heesayaan sidoo kale ciyaarayaan dance. waardiyaha ayaa intaa kadib la soo celiyay iyada oo la arkayo ciidanka hobalada xabsiga balse inta ka hor inta uusan wax badan ka baran qolka inuu ku qaato wasiirka ayaa waxa uu ku khasbay in ay iskaga soo baxaan. waxa uu helay fursad uu ku qaadan karo gabadha inta ay heestu masraxa ka socoto. inta uusan qaadan gabadha waxa uu ku riday kartoon. waxa ay arkaysaa aabaheed oo dambiile ah waxa ayna ku guuleysanaysaa in ay la kulanto. waxa ayna ku celcelinaysaa aabe iyada oo ooynaysa. ugu dambeyntii gabadha iyo aabaheed waa ay kulmeen. dhanka kale gabadha aabuhu waxa uu sheegayaa inuu xabsigu uusan xumayn. waxa ay u sheegayaan kooxdiisu in la gaaray xilligii dib loogu celin lahaa gabadha. si kastaba ha ahaatee ma uusan rabin in dib loo celiyo gabadhiisa. waxay kale u sheegaysaa in ay khabiir ku tahay in isqarinta ayna hoos u dhigayso madaxeeda kartoonka si aan loo arag. nasiib xumo inta aysan gaarin meesha kooxdu waxa ay ka baxayaan xabsiga halka ay dib ugu soo noqonayso xabsiga. maxaabiista kale ee xabsiga ku jirta dhexdiisa waxa ay ka walacsan yihiin in haddii lagu qabto xabsiga loo kordhin doono. maalin maalmaha kamida
iyaga oo gudanaya hawsha nadaafadda waxa ay qorsheynayaan in ay gabadha dib ugu qaadaan xabsiga marka ay koox kala timaado si ay u soo bandhigto bandhig faneed. Maalinta taliyuhu waxa uu helayaa sawirro gabadha iyo dhacdooyinka, waxa uuna ogaanayaa in la xaday gabadha, waxa uuna dirayaa nin, waxa uuna u sheegayaa in uu baaro dhammaan guruubyada uu ka kooban yahay xabsigu. Mid kasta oo ku jira xabsiga oo ka mid ah Group 7 waa uu cabsanayaa, waxa ayna bilaabeen in ay gabadha meesha ka saaraan, waxa ayna geeyeen xarunta daryeelka carruurta iyada oo Jango laga xiray qol gooni ah. Isla habeenkaas ayaa mid ka mid ah maxaabiista uu qabadsiiyey dab qolkii uu ku jiray taliyuhu, isaga oo ka baryayay waardiyayaasha in ay u ogolaadaan in uu la kulmo aabihii, isaga oo aan cidna dhag jalaq u siin. Waxa uu sii waday in uu baasiin ku shubo, halka ay ilaalada gaarka ay isku dayeen in ay joojiyaan. Waxaa la arkay taliyaha isaga oo ku xiran qol gubanaya, dhammaan maxaabiista kale waa la sii daayay. Yangu markii uu ka soo baxay waxa uu arkay xaaladda, markii uu arkay taliyaha oo nafsadiisu halis ku jirta waa uuna badbaadiyay. Maalintii xigtay waxa uu soo kacay taliyuhu qolka hosbitaalka, dhakhtarkuna waxa uu u sheegayaa in uu Yangi uu nafsadiisa halis u geliyay si uu u badbaadiyo. Taliyuhu waxa uu eegayaa isaga oo xanuun ka dareemaya gudihiisa iyo in uu khalad sameeyay. Dhanka kale taliyuhu waxa uu la kulmay Ai Song, waxa uuna cunugta u sheegay in maalin walba ay aabaheed xiisada kadib soo booqan doonto. Gabadhuna waa ay aqbashay, labadooduna waa ay midoobeen. Dhanka kale taliyuhu waxa uu isku qabsaday indhaha, waxa uuna habeenkii xigay taliyuhu bilaabay in uu dib u furo kiiska Jong, waxa uuna ogaaday in uu yahay tuhmane aan waxba galabsan. Asxaabtiisu waxa uu ku wargeliyay in kiiska uu yahay inanta taliyaha bilayska, waxa ayna ku khasbanaadeen in ay si degdeg ah xukunka dib ugu ridaan. Markii ay eegeen gal dacwadeedka taliyaha ilaalada xabsiga, ayaga oo sidoo kale ogaaday markhaatiga Yongi in laga been abuuray. Marka aan eegno cadaaladda Yongi loo sameeyay in gabadhiisu maalin walba ay soo booqato iskuulka kadib, waxa ayna u imaan jirtay dhammaan asaga iyo asxaabtiisa, sidoo kale waxa ay bari jirtay Bongi sida wax loo qoro, halka Shig oo muujinayay sida uu uga xun yahay xaaskiisa oo uur leh. Yeson waxa ay amaahisay moobeelkeeda, waa uuna la hadlay asaga iyo asxaabtiisa. Subaxii xigay asaga iyo saaxiibkii waxa ay ordayaan banaanka, waxaana kasoo daba ordaya waardiyaha mid ka mida, waxa uuna u sheegayaa in gal dacwadeedkiisii dib loo furay maxkamadda. Markii ay maqleen asxaabtii dhammaantood waa ay farxeen, waxa ayna go'aansadeen in ay isku diyaariyaan dacwadda oo ay caddeeyaan in aanu wax dembiya gelin maxkamadda dhexdeeda. Waxa ayna u sharxayaan in ay wax walba ahaayeen shil, asaguna wax dembiya oo salax, waana uu ku raacay arrintaa. Saaxiibada guriga ayay ku wareersanayeen, waxa ayna soo celcelinayeen arrinta gabadha. Gabadhuna waxa ay dhimatay marka ay madaxa dhulka ku dhufsatay. Ka hor maxkamadeynta, inta aan la horgeyn, Yong waxa uu ka jawaabayay su'aalaha xeer ilaalinta si uu taxaddar u muujiyo uguna jawaabo sida saxda ah. Waxa ay weydiinayeen asxaabtiisu su'aalaha, maxaabiistuna waxa ay xasuusinayeen mar walbana waa ay ku soo celcelinayeen jawaabaha fiican. Dhanka kale looyarka qaranka ayaa uu la kulmay xabsiga Yong asaga oo ugu hanjabay in uu qirto dilka, waxa uuna uga tagay asaga oo ku yiri taliyaha ciidanku waxa uu leeyahay awood buuxda, waxa uuna awoodaa inuu lumiyo nolosha gabadhaada haddii aad diido inaad qirato. Si loo tuso inuusan waxba galabsan, taliyaha xabsiga iyo maxaabiista qolka 7 oo asxaabtiisa ahaa dhammaantood waxa ay ka soo qayb galeen maxkamadeyntiisa. Nasiib darro, taliyaha booliska ayaa soo booqday maxkamadeyntiisa ka hor, waxa uu si arxan darro ah u weeraray isagoo ugu hanjabay in uu dili doono gabadhiisa haddii uusan qiran ama uu isdifaaco nafsad ahaantiisa. Yongi waxa uu sameeyay arrin nafhurid ah, isaga oo sheegay in uu dilay gabadha taliyaha si uu u noolaato gabadhiisa. 23 Diseembar waxa uu ciyaarayay, waa uuna heesayay dhalashada gabadhiisa. Maxaabiistuna waxa ay dareensiiyeen in ay ka xun yihiin arrinka. Yangi waxa uu go'aansaday in uu dhiso buufinka hawada kulul oo qayb ka ah qorshahooda weyn.
inta ay xabsiga ku jiraan in la sii daayo. Yang iyo gabadhiisa waxaa loo diray hawada sare si ay ugu raaxaystaan halkii ay aad u murugoon lahaayeen isticmaalka waqtigan si uu u arko qorax dhiciisii u dambeeyay. Waxa uu dib ugu soo laabteen xabsiga waxa ayna u dabaaldegayaan dhalashada gabadha yar aabaheed. Mid kasta oo ka mid ah waxa uu u siinayay hadiyad yaryar waa ayna ka helaysay. Yang waxa uu kadis uga dhigayaa boorsadii ay bilowga filimka ka helaysay dib ayuuna ugu soo celiyay taas oo ay mar walba doonaysay. Waxa ay ku raaxaysanaysaa hadiyadaha waxa ayna bilowday in ay madaxeeda hoos u dhigto si ay ugu mahadceliso. Si kastaba ha ahaatee waxaa soo dhammaaday dabaaldegii. Waxaa soo dhawaatay fulinta dilka Yang waxa uuna u sheegayaa in ay qariyaan ilmadooda gabadhana ay u sheegaan been in aabaheed loo bedelayo xabsi kale. Inta aysan ka tagin ka hor hab ayuu siiyey gabadhiisa waa uuna ooyay gabadhuna sida oo kale ayay samaysay. Inkasta uu uusan doonayn inay ka tagto gabadhiisu waxa uu ka codsaday in uu ka caawiyo waardiyuhu. Muddo kadib Yang waa la dilay sababta oo ah eedeyntii beenta ahayd. Waxaa baranaynaa Jason oo weynaatay waxaana soo koriyay taliyaha xabsiga waxayna wax u baratay si adag waxa ayna noqotay lawyer ama qareen. Waxa ayna racfaan ka qaadatay kiis gabar. Waxa ayna codsatay in la siiyo diiwaan la xiriira afduub iyo dil Yang ee dhacay 1997. Waxa ay ku jirtaa xabsiga kadib markii ay heshay waraaqaha waxa ay aragtay buufin madaxeeda dul heehaabaya. Filimku waxa uu isku bedelayaa dhageysi maxkamadeed oo isla kiiskii 1997 intii lagu guda jiray mid la mid ah. Jason waxa ay samaysay difaac kiiska ah waxa ayna weydiinaysaa in goobta baaris lagu sameeyo dhammaan cadeymaha la soo gudbiyay maxkamadda dib loo eego. Balse looyarka ka soo horjeeday ayaa waxa uu weydiinayaa in ay joogtay markii uu dhibtu ku dhacayay goobta. Jason waxa ay ku jawaabtay inaysan joogin balse ay daawanayso sida ay wax u dhacayaan waxaana caawinaya maxaabiista xabsiga kula xirnaan jirta aabaheed. Dhanka kale waxa uu isku rogayaa xasuus xabsiga waxa ay xasuusanaysaa markii ayadiyo aabaheed buufinka kulul ee hawada u duula ay wada saarnaayeen. Waa ayna ooynaysaa waxa ayna xasuusanaysaa aabaheed. Filimkeenuna intaas ayuu ku dhammaaday. Sheekadana waxaan ka baranaynaa si uu waarid walba uu ilmihiisa nafta ugu huro. Haddii aad nala soo gaadhay dhamaadka waxaa ka codsanaynaa fadlan inaad subscribe noo saartid. Leegtaaduna waa noo dhiirigelin mahadsanid. Intaa muuqaalkan iyo muuqaal lamid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.